muuqaalka hordhicisa sidaa ku soo aragteen aabbahan Soomaaliyeed wuxuu sameeyay arrin aad iyo aad ee dadka Soomaaliyeed uga falceliyeen waliba aabbahan wuxuu sameeyay arrin aysan ku dhiiri karin dad badan oo hadda daawanayo aabbahan wuxuu gubayaa lacagtii Mareykanka waliba $100 ayuu gubayaa annagoo og $100 qiimaha ka leedahay wadanka Soomaaliya ayuu haddana gubayaa aabbahan sababta ka dambeysay lacagta inuu gubo ayaa ka dabageynaya aabbahan wuxuu ka shaqeeyaa suuqa sarifka ee Goldagob ayuu ka shaqeeyaa dabcan waa u jeedin qaanada lacagta lagu sarifay ayaa ka dambeeyso subaxii ugu horeysay oo soo shaqo gala maanta ayay ahayd lacagtii ugu horeysay oo sarifan waa $100 dabcan $100 markii loo keenay wuxuu go'aan ku qaatay inuu gubo lacagtan sababta ka dambeysana waxay tahay weelka kaabka ciyaaraha Umar Cartan markii hadda laga reebay aad baan uga xumaanay aad baan uga xanaaqnay Trump hadduu yiri baasaboorka Soomaaliya laguma geli karo ciyaarihii uu hadda weelka kaab ka reebay waxa weeye annaguna doolarkiisa maanta laga bilaabo waa joojinayna maadaama la soo celiyay Umar Cabdulqaadir Cartan ee garsooraha Soomaaliyeed oo la dhahay wadanka Mareykanka ma galaysid aabbahan sidaas ayuu ka xanaaqay waa u jeedin warqadda waxa ku qoran ee sawirka Umar Cartan qaybta korana wuxuu uga qoray nabad heybad waxa ku leedahay dabcan dhulkaaga hooyo runtii waxa dhigi kara aabbahan waxa ku jirto damiirka Soomaalinimada oo dad badan oo maanta Soomaaliya ma laga yaabo inay lacagta doolarka gubaan dad baaba doolarka caabudo adiga hadda muuqaalkan daawanayo ma gubi lahayd $100 qaybta commentiga nagula wadaag dabcan asaga inuu gubo horta kuma saxsano waayo waxa laga yaabaa dad badan oo u baahan lacagtan inuu siiyo ayaa qeyr badneed laakiin Soomaalinimada iyo dhiigii ayaa boqolkiiba dhigi karnaa dabcan Donald Trump hadduu arkana arintan aad iyo aad ayuu uga xanaaqi doonaa lacagtiisa ayaa la guboyaa inaysan waxba ahayn ayaa la tusayaa wadankooda iyo qurunka ay wataan iyo lacagta ay wataan dabcan garsooraha Umar Cartan arintiisa dib ayaa u dhiga doonaa laakiin odagan maalmahan baraha bulshada asaga ayaa la wareejinayay aabbahan Soomaaliyeed dabcan arinta uu sameeyay dad badan hadda daawanaya ma sameyn karaan oo lacagta qiimaha leedahay qof walba og yahay lacag si lagu helana way adag tahay laakiin aabbahan waxaas break uma qaban waxa kala qiimo badnaatay magaca Soomaaliyeed iyo wuxuu ka xanaaqay oo dhiigana ugu kacay wiil Soomaaliyeed in laga soo celiyo wadanka Mareykanka oo waliba lagu cunsuriyay Soomaalinimo dabcan aabbahan waxa leenahay sharaf iyo karaamo lacagta ina gubtan waa ku fuudaatay ani tiimkayga ina noo qaybisay kala had laakiin dib ma lahan waa ku qaadanay aaba guuleysa ku leenahay horumar wacan cadawgaagana ha u jabin dabcan wax fiican ayaa sameysay Soomaalinimadana waa lagu faanaa